وكوي طبعا بشهر ربيع الثاني سنة كنا فربغلا فرطني تضبط تاريخ ده هجرية ده وفي نموذج مع سبتي أي سوق ليس وأنا سدح ده بشهر طبعا سنة لبا كن شر لباطن قضبض عن يكون هنا برنامج كان في نمع وحا كمدة ديد مدي حماس قرشي وسوج دي ترام كذب ترام عاوة وحو أقبت حماس إلا إيمان انت أحدأ صوصعو تبريد دنبي لحظة في نمو حلقة واشنطن تايم قرال وصولي برتيسا سوشيال ميديا لكن قرال كيسا دقنين تحبارسان ورياب لأو كجري أيان إدين هيا ونسلا فاقدي دونا قضبضا سيدو كلاي عن برنامج كيدين كوهن إيانا وحا كمدا سردونك دالك تركيا ميت وحي قعنتا كوديغان نين وشاقيني سردونك إسرائيل موساد قداها دالك تركيا الوقبتي نين كانسا شاقياب لأو هاي أيان إدين هيا وأندول استاقي دونا dhanka kale dowladda dalka Kuwait waxa ay cambaaraysay falka lagu xiray saddex kamida muwaadiniinteeda oo kamid ah dadkii saarnaa doomihii gargaarka u waday marinka Gaza oo ay Israa'iil afduubatay haddaba Kuwait maxay tahay fariinta ay u dirtay Israa'iil ee Oman oo iyadana toos ula hadashay Israa'iil macluumaad ayaan idinkaga hayaa qodobada sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doonto waxa iyana kamid ah Israa'iil waxay maanta tarxiishay mar kale 4 muwaadin oo reer Talyaani ah doontii u dambeysay way qabatay doomihii u waday gargaarka marinka Gaza laakiin wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil warbixin uu soo saaray oo ku aadan dadkii doomaha saarnaa ee 497 qof iyo dalalkii ay ka soo kala jeedeen iyo shaqada u taaray Israa'iil iyo doomanka soo socda iyo xaaladda meesha ay marayso macluumaad ayaan idinkaga diyaariyay oo aan isdul taagi doonaa aynu ku bilowna barnaamijkeena fiidnimo caawa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa social media waxa uu caawa soo dhigay qoraal digniina oo toos ugu socotay kooxaha iska caabinta marinka Gaza gaar ahaan Hamas waxa uu yiri Hamas war badan meesha lama rabo waxaad haysataan ilaa iyo 6 maqribnimo ama fiidnimo ee xilliga Washington time haddii intaas aad heshiiska qaadan weysaan oo 20 qodob ee Trump loo hoggaansami waayay wuxuu leeyahay Donald Trump waxa dhici doona buu yiri waxaan adduunka hore u soo marin oo macnaheedu ay tahay wuxuu leeyahay waxaanu qaadaynaa tallaabo culus oo markaa horseedaysa burbur iyo halis weyn oo bariga dhexe nuuciisa aan hore u soo marin waa digniin yaab leh haddaba qoraalka Donald Trump uu soo galiyay bartiisa Twitterka sida soo socota ayuu u qornaa wuxuu yiri digniin culus oo Hamas ku socota wuxuu yiri Trump heshiiskan inuu yahay fursad qaaliya oo la haysto laguna joojin kara dagaalka wuxuu yiri haddii aan la gaarin heshiiskan ugu dambeynta ah dagaal iyo burbur aan hore dunida looga arag jaxiimo ah ayaa ku dhici doona Hamas wuxuu inta raaciyay siday doonta ha ahaato qoraalkiisu uu dheeraa laakiin nuxurka waxa kamid ah ama inta laga qaadan karo siday doonta ha noqoto buu yiri dagaalka bariga dhexe uu dhamaanaya wajh kasta ku dhamaado oo macnaheedu ay tahay burbura la gaarsinaa waxba la burburinaa kadib dagaalka xooga lagu joojinaa haddaba Israa'iil maxay rabtaa dadkooda la haysta maxay rabaan Donald Trump muxuu rabaa Donald Trump wuxuu doonayaa dagaalkan inuu joojiyo qaabku doonaa ku joojiyo wuxuu rabaa inuu ku darsado guulaha uu gaaray dagaalkii Ukraine iyo Ruushku joojin waayay maadaama kaas uu joojin wuxuu rabaa kan inuu ka dhigo in mid uu joojiyo haddaba maxaa dhacay maanta kooxaha iska caabinta Hamas waxay soo saareen war ay ku sheegeen qodobada 20ka ay soo jeediyay Trump inay tahay wax aan la qaadan karin oo aan la aqbali kareynin sabab cad oo meesha ku jira ay soo qaateen oo ay kamid tahay 27 saac oo hubka lagu dhigo Israa'iil oo iska sii joogta Gaza waqtiga ka baxayso la cadeynin Trump markii uu soo baxay warkan ku saabsan in Hamas aysan ka baxaynin Gaza oo dagaalka ay sii wadayaan dadka Israa'iil laga haystaan la soo deyneen markii hore Mareykanku wuxuu iska dhigay in Israa'iil garab u siiyaan oo ay xaaladu dhexdhexaad ka yihiin oo ay rabaan inay xaaladda qaboojiyaan laakiin dagaalkan wuxuu cadeeyay sidoo u bilowday 7 Oktoobar wixii ka dambeeyay in Mareykan iyo Israa'iil ay yihiin hal iyadoo markii hore ay iska cadeeyay laakiin dagaalka Gaza banaanku keenay Trumpna nalbu ku sii shiday banaanku sii dhigay
hadda wuxuuba taagan yahay annaga jaxiimo ka dhigayna meesha macnaha annaga dagaalameen haddaba maxaa lagu sameeyay qaza bilihii la soo dhaafay waxa laga burburinayay saraha ugu waaweyn dadkii iska daa caruurtii dumarkii isbitaalada la burburiyay masaajidii iska daa infrastructure la burburiyo iska daa dadka reer qaza qax iyo dhibaato loo gaarsiiyay iska daa maxaa dheeraad oo la sameyn doonaa kooxaha iska caabin godad dhulka hoostiisa ku jira qof ayay intay baxaan ay koox ula dagaalayaan ciidanka Israa'iil haddaba dagaalkan ma tahay hadafkii ay rabeen dadka qoysaskooda la haystay inay gaaraan qubrada arrimahan ka faalooda waxay leeyihiin ma aha ilaa mar walbo Mareykan iyo Israa'iil ay awood adeegsadaan 20 qof ee la haystay meydka iska badaawa 20 nool ama dadka ku dhow 20 Israa'iil laga haysto naftooda mar walba khatar cusub ay sii galaysaa oo macnaheedu waxay tahay xaaladan iyagu waxba uma tarayso oo aan ka ahayn halis kale oo ay sii galayaan waana sababta qoysas dadkooda ay maqayn ay u codsanayaan dagaalka in degdeg loo joojiyo waayo walaalaha qiimiga loo hanjabaada iyo degdegta Trump markaynu meesha uga gudubno aynu u gudubno qodobka ku aadan doomaha loo yaqaan Global Smooth and Flotilla waa dad isxilqaama waxayna ahaayeen 497 qof oo ka kala jeeda 46 dal dadkan waxay go'aansadeen xitaa haday naftooda halis u galayso xildhibaanaha ku jira madax horaa ku jirto qaar madax wadamo kala duwan ka noqdaa ku jira sanataraa ku jiro Israa'iil doomankii doonta u dambeysay maanta ay qabatay oo jimcaha ay doontii u dambeysay 42 doomada gacanta ku dhig oo raashinkoodii iyo wuxoodii saaray raashinkii qasal loo waday maanta Israa'iil ay yaalaan waxa cajiib ah shuruucda caalamiga UN wixii dhan waa la qeynaa wax ka qaban karo malaha talyaaniga 4 muwaadin oo muwaadiniintiisa kamid ah ayaa maanta la tarxiilay iyagoo ooyayo oo dhahaya in la tarxiila ma ahan dadka aan raashinka gaarsiino Greta gabadha la reey Sweden ahayd way ooyeysaa waxay leedahay waa gabar u dhaqaaq arrimaha cimilada isbedelka iyo environmentiga u dhaqaaq arrimaha beedeed ka dhaqaaqis bini aadanimada gabadhan ku jirto way ooyeysaa waxay leedahay waana la qasbaya xoog awood ayaa naloo sheegtay waana lagu xadgudbay xuquuqdii aan ahayn lama siinin militariga Israa'iil dadkan way qabteen gaar ahaan ciidamada badda waxay ku soo weerareen dooman 4 talyaaniga waa dadkii ugu horeeyay ee la tarxiilay waxaana arinta bartiisa Twitter-ka ama X soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Katz haddaba raaliha Gideon wasiirka arrimaha dibadda Katz waa gaashaandhigga wuxuu leeyahay dhibaatadaas ayaa dhacday waa la tarxiilayaa dadkan waxay ku goodinayaan cidii kale hadda dooman kala soo socdo dhibaatada jirto maanta wax la xiraayaan adduunkan waxayba ka noqotayba dad cusub hadda maanta aan arkay baraha bulshada iskugu baaqay oo dhahaya aan ku biirno Global Smooth Flotilla Israa'iil marka dadka adduunka dhan ma xiri doontaa dadka adduunka dhan ayaa mashruuc ka dhigtay arintan oo la ka dhigtay maanta mudaharaadii waaweyn ayaa ka socda Spain Italy dadka Talyaaniga banaanka wadooyinka jiifaan way mudaharaadeen iyadoo hadda haweeneyda haysato ay tahay tiimka Trump iyo Netanyahu dhinacooda lagu xagliya oo waa xagjir haddana wali dadka Talyaaniga shacabka caadiga ah arinta qaso way ka guwanayaan bulshadii adduunka dhan dhibaatada lagu hayo dadka reer Falastiin caruurta iyo dumarka dhimanaya way ka kullaanayaan cunada la joojiyay Israa'iil waxa lagu haystaa kaalmada bani aadanimada iyo raashinka qaso joojinayso ay ka joojinayso hadda waxay u bedeleen sheeko ah maadaama Hamas iyo ay Israa'iil cambaarayeen ana sheekada doomankan Hamas aba ka dambeysay leeyihiin taasoo adduunka dhan aad loogu cambaaray Israa'iil dadkan waa dad madax banaan qaarkood caan oo aad adduunka looga yaqaano si kastaba noqotee arintii hadda faray ka sii baxaysa dooman kale ku soo socdo Israa'iil iyadoo wax leeyahay xirto dadka adduunka oo ku soo socdaan waayahay muwaadiniinta kale ay sheegtay Israa'iil wadamada ka soo jeedinay hadda u diyaarinayaan sidii loogu celin lahaa wadamada iyo dalalka ay ka soo kala jeedaan oo loo gudbin lahaa waxaana loo qaban qaabinayaa celintoodii iyo tarxiilkoodii 48 saac u dambeeyay Israa'iil waxay gacanta ku dhigtay 42 doomood oo dhamaan aha doomankii u soo aaday Gaza inay gargaaraan maalmo badanna ku soo jiray badda waaya labada qodob markeen meesha ugu gudubno walaalaha qiimiga waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena fiidnimo caawo oo habeenimo jumcada sabti ay soo galayso
aad baan kaaga mahadcelinayaa haddii aad ka mid tahay walalaha qiimiga leh ee ku xiran barnaamijka haddaadan weli kusoo biirin fadlan kusoo biir oo subscribe dheh aynu u gudubno qodobka ku aadan sirdoonka dalka Turkiga hay'adda sirdoonka Turkiga ee Met ayaa maanta gacanta ku dhigtay nin Turki ah oo la shaqeynaya sirdoonka Israel ee Mossad kaas oo laga qoray barta WhatsApp-ka oo xiriir uu kala sameynayay wakiil ka tirsan Mossadka Israel. Mossad waa sirdoonka Israel howlaha dibadda qabta waana kooxdii ka dambeysay dilkii loo geystay Xasan Nasrullah iyo sidoo kale dilkii loo geystay Ismaaciil Haniya ee lagu dilay magaalada Tehran ee dalka Iran. Haddaba ninkan wuxuu dabagal ku sameynayay nin lagu sheegay inuu yahay Falastiini ah ama geesi reer Falastiin oo aad loo jecel yahay oo uu dhaqdhaqaaqiisa uu la socday muddo 4 maalin ah. ninka Turkiga ah ee la qabtay ee sirdoonka Israel u shaqeynayay ayaa 4 maalin wuxuu daba socday nin reer Falastiin oo halyeeya oo aad loo jecel yahay howl badan u haya dadweynaha reer Falastiin si uu wax uga ogaado cidda uu la kulmayo iyo halka uu degan yahay isagoo maalintii qaadanaya lacag $1,000 ah. waxa $1,000 qaadanaya ninka Turkiga ah waxaana siinaya Mossadka Israel $1,000 ay siinaya maalin kasta bal fiir ninka Falastiiniga sidoo muhiim u yahay $1,000 lacag yar maan daily ah maalin walba shaqadiisana maxay tahay ninkan Falastiiniga ah raadkiisa inuu daba socdo haddaba lacagta qaabka lagu sii laftirkeeda qaab farsamaysan way asaga WhatsApp baa laga helay meesha lacagta laga siina lacag bangi loo soo dhigayo lacag cash ma cryptocurrency lacagta lacagaha online internet ayaa lacag looga dhigay si aan tixraac loo ogaanin laakiin Turkiga waxay leeyihiin sirdoon aad u sareeya Met la dhaho waliba arrimaha Israa'iili dhaqdhaqaaqa Mossad iyo Turkiga indhaweyna lagu hayaa macnaha aad baa indhaha loogu hayaa waayo waxaa la ogyahay meelaha targetka ay ka yihiin ama ay danaynayaan inay Turki ka mid tahay waxaa warbixinta qoray Yanis Safak jaraa'idka la dhaho Yanis Safak ee ka soo baxa dalka Turkiga wuxuuna ku sheegay inay ahayd mid ka mid ah guulihii ay gaareen sirdoonka dalka Turkiga ugu dambeyn ninka waa la hayaa hadda wuxuu sugi doonaa waa maxkamad iyo in la hor keeno cadaaladda dalka Turkiga Turkigana arrimo jaajusnimo jawaasiis dalka lagu shaqeynayso waxay ka tahay arrin mid ka mid ah dambiyada ugu waaweyn ee dalka Turkiga gudihiisa qofi uu ka galo waayo walaalahay saaxiibada qiimiga leh marka in qodobka qaybta meesha ugu gudubno Kuwait way hadashay caawa waxaa laga haystaa 3 muwaadin oo muwaadiniin Kuwaitiyan ah waxaa gacanta ku haya Israel muwaadiniinta waxay qayb ka ahaayeen ama ay gadaal uga soo biireen waxa loogu yeero Global Smooth Flotilla waxayna noqdeen khaliijka dalka kaliya ee kaga jiro muwaadiniinta lama ogeyn gadaal ay ka soo baxeen Kuwait marka Israel ay fariin u diraysaa waxay leedahay muwaadiniintaas degdeg u soo daa noo soo celi haddii kale waxay noqonaysaa bay dhaheen in lagu xadgudbay muwaadiniin reer Kuwait ah oo aanan shaqo ku lahayn badda Israel ama dhulka ay haysato aan gelin Gaza ay ku sii socdeen meel qaldanaan ka qabsateen muwaadiniinta soo celiya soo daaya xorriyadooda siiya balofis Kuwait waxay barye ama ay codsanaysaa muwaadiniinteeda in loo soo daayo kuwii Talyaaniga way ooynayaan dawladoodii loo celinaa dalkoodii loo celinaa farqiga u dhaxeeyo sabab ma garanaysaa Talyaaniga haddii ay Israel isdagaalaan Israel dan ugu ma jirto Talyaaniga neeta qayb ka tahay wadamada Yurub ay qayb ka tahay waa dal saameyn leh waa dal weyn mar rabta Netanyahu kooxdiisa inay la dagaalaan ama xiriirka Talyaaniga uu ka xumaado laakiin Kuwait iyo Carabtan waxa waa yaa kala jecel Oman way hadashay waxayna aad u cambaaraysay falka Israel ay kula dhaqmayso doomanka kaalmada bini'aadanimo u wada Gaza waxayna sheegtay inay falkaasi muujinayso xadgudubka Israel ay ka wado gudaha Gaza xasuuqa ay geysatay iyo dambiyada ay galayso Kuwait waxa la yiri markan saldanada waxay ku hadashay luqad aan hore looga baran wadnay iska baartay si geesinimo leh oo xayinimo leh inay u hadashay ay warbaahintu qorayaan waxayna ku tilmaantay fal ay tahay in bulshada caalamka isku si looga falceliyo ugu dambeyn madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan
iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay qadka taleefanka inay ku wada hadleen kana wada hadleen arrimaha bariga dhexe gaar ahaan xiisadda Gaza in la qaboojiyo isagoo uu Erdogan u sheegay in Turkiga ay ka go'an tahay in la dhaqan geliyo xaaladana la qaboojiyo nabadna loo helo bariga dhexe laakiin Turkiga waxa uu sheegay Erdogan la wadaagay Trump cidda waxay qasaysa ku ciyaarayso ee aan rabin xal in laga gaaro inay yihiin Netanyahu iyo kooxdiisa